iyadoo maalmahanba abaar baahsan iyo biyalaani ka jirtay deegaamada gobolka Togdheer iyo gobolada Bariga oo dadkii hore abaartu wax u yeeshay ee aan helin wax gurmada haddana ay saamaysay biyo iyo baad la'aan ayaa maanta waxa deeq biyo magaalada Burco ka diray golaha horseedka ee ka shaqeeya taakulaynta dadka jilicsan ee Soomaaliland deeqdaas oo loo kala diray degmada Caynaba degmada Gabagabo deegaanka Ballacalanle iyo Qurlugud cilmi jaamaca wada wakiil ka ah golaha horseedka ayaa faahfaahiyay deeqdan booyadaha kan aynu ka bixinaynaa gurmad biyood oo ay fidiyeen golaha horseed golaha khayriga ah lagu magacaabo horseed golahaas oo runtii in fara badan oo hore ama gurmad fara badan oo hore tabarucaadka iyo haday tahay dadka jilicsan wax badan u gurmaday oo maantana halkan aynu ka bixinayno 8 booyadood oo ay soo bixiyeen dhaqaalaha ururka ama golaha horseed 8 booyadood oo 4 kamid ay u socdaan ama aan u dirayno magaalada Caynaba dadka biyalaantu ay food saartay iyo laba aan u dirayno degmada Gabagabo iyo mid aan u dirayno Ballacalanle iyo booyada aan u dirayno meesha la yiraahdo Qurlugud 8 booyadood ayaan maanta halka ka bixinaynaa waxaan u mahadnaqaynaa intii ka qayb qaadatay bixinta dhaqaalahan waxa kale oo jira laba booyadood oo waaweyn oo u dhigma 4 noocan yaryar ah oo aan hore ugu diray deegaanka Ceelaf weyn doraato aanu diray oo aan halkan iyaga laga dhaamin karin oo jiid oo fog awgeed aanu dhaqaalaheeda diray si ay halka uga soo dhaamiyaan marka waxaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aniga oo ka socda oo wakiilka ah ururka horseed aniga iyo Cabdimalow aan golaha horseed anaga ka wakiila waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay halkan waxa maanta laga diray gurmad biyood iyadoo ay laba booyadood imkana halkan ay taagan 8 booyadood waxaana lacagta iyo juhdiga badan galiyay golaha horseed ee khayriga ah golahaas oo in badan ka qabtay gobolka ama dalkaba ha ugu dambeeyo macallinkii Maxamed Cabdi iyo gudoomiye Sheekh Aadan ayaa u mahadnaqay golaha horseedka iyagoona ku baaqay in gurmad degdeg lala soo gaaro dadka ay hayso biyo la'aanta baahsani aad iyo aad marka hore waxaan ugu mahadnaqaynaa golaha ururka horseed ee khayriga ah ee dadkooda u soo gurmaday maanta xaaladda waddanku taagan yahay waa la ogyahay abaar baan baa ka jirta biyo la'aan baa ka jirta dadkii oo itaalkiisu yar yahay abaarihii hore aan wali ka soo kaban oo aan umika iska xijin karin shilinkii iyo wixii biyaha la siisan lahaa baa jira hadda waxaan kala inuu mahadnaqaynaa ururka horseed jamciyadda horseed ee dadkeeda oo soo gurmatay maaragtay waa waxtar waxaanu aad iyo aad uga baryaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr iyo wanaag ugu bedelo waxaanu leenahay xaaladda dhulkii baanu joognaayo xaaladdu adeeg badan baa jira adeeg fara badan iyo dhibaato fara badan waa jirta in loo gurmado dadka waa waqtigii ugu dhibta badnaa waxaynu ku jiraa jiilaal sida jamciyadaas horseed oo kale ha loo soo gurmado waa waxtar marka loo eego baahida oo waxbay qabanayaan 8 booyadood iyo kuwa la midka ah ee ka horeeyay Mahad Cali Goodir Star TV Burco.